Somaliland ayaa maanta u dabaaldegtay 28 guuradii ka soo wareegtay markii ay xornimadeeda kala soo noqotay jamhuuriyaddii la isku odhan jiray Soomaaliya. Shacabka ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha halka qaar kalena ay hambaliyadooda ku soo gudbiyeen social media. Haddaba dadka caanka ah ee maanta 18 May hambaliyadooda soo diray waxaa ka mid ah Chunkz oo isagu ah YouTuber ay subscriberskiisu kor u dhaafeen 700,000 oo subscribers ayaa bartiisa Instagram-ka uga soo hambaliyay shacabka Somaliland. Happy Somaliland Independence Day to my people. Yes, I'm from asal. You know what is it? Dhinaca kale, gabadha maryaha xayeysiisay ay Chunkz isku wadanka ku nool yihiin Jama oo ay iska dhaleen hooyo isu dhashay iyo aabba Somalilander ayaa iyaduna dhinaceeda hambaliyadeeda aan la gaban iyadoo shacabka Somaliland ugu soo hambaliyeysay barta Twitter-ka. Gabadhani maryaha xayeysiisa oo ku dhawaad 1 milyan oo saaxiib kula barta Instagram-ka ayaa hambaliyadeeda ku soo gudbisay barta Twitter-ka. Waxay tiri hambaliyo maalinta qaranka kuwa aan jecelahay calan ma jiro laakiin way jecelahay si walba haddaba.